halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. Waxaan ku salaamay salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalayaal saaxiibayaal, waxaan rabaa horta inaad sheeko yar ku dhufto. Sheekadu waxay leedahay sida tani. Beri baa waxaa dagaalamay laba beelood baa dagaal dhex maray. Dagaalkii muddo ka bacdi oo dheer kadib heshiis iyo xabajoojin baa la dhex dhigay. Xabajoojin markii la dhex dhigay baa reeraha ka mid ah baa waxaa ka dhumay xoolo. Xoolihii markay ka dhumeen waa baadigoobeen. Xoolihii baadigoob dheer dabadii waxay u galeen beeshii ee xabajoojinta la dhex dhigay baa xooluhu la galeen, baadigoobkii la galay. Kadib 3 nin oo reerkii beelihii kale ka mid ah arkay ninkan oo beelihii shalay la dagaalama ah. 3doodii intay isku yimaadeen ay ninkii qabteen bay ku kortameen. Waxay yiraahdeen waan dilaynaa iyo madax furashan ka qaadaynaa iyo arrinka waa laga heshiiyaa la iska daayay. Ninkii weynaa wuxuu yiri ninka waa dilaynaa. Ninkii dhaxa wuxuu yiri ninkani madax furashan ka qaadanaynaa waan qifaalaynaa. Ninkii yaraa wuxuu yiri ninka arrinkan waynu ka heshiinay ha la iska daayo. Kadib ninkii la qabtay oo beesha kala ahaa inaan la deynin buu ogaaday. Wuxuu yiri fariin baa idin dhiibayaa dardaarana. Marka wuxuu yiri qoyska ugu horeeya ee meesha wadada laga galo ku yaala markaad u tagtaan waxaad ku tiraahdiin heblo waa tuma. Waa aniga gabadhaydin tiraahdo waxaad ku tiraahdiin ninkii baadidii baa ku dheeraatay inuu soo noqon baa macquula. Waxaad yeeshaa wuxuu ku soo yiri fariin buu inuu soo ka dhiibay. Wuxuu ku yiri reerka ratiga weyn reerka ha loo qalo, ratiga dhaxa reerka ha loo gada, ratiga yarna reerka ha loo daayo intii jiray. Hadalkii way qaadeen way u tageen. Naagtii erankii way fahantay in maartay ninkeedii la dilay way fahantay. Martii baa ii dihiin halkaan ay fariistay tir. Kadib hoosay ka wax doontay rag bay raadsatay ciidan bay doonatay rag iyo saligu ku fadhiyaa loo yimid. Kabacdi waxaa dhacday markay kor timid tireen nimankaan ninkeyga dilay. Nimankii waagi baa u bariya wajah wareereen baa waagi baa u bariya. Dhowr nin oo hubaysanna waa kor taagin. Kadib waxay tireen ninka weyn waa ninka ninkeyga dilay. Ninka dhaxana waa ninkii yiri lacag laga qaato. Ninka yarna waa ninkii yiri ha la iska daayo. Waryaa ku sheega waa idinka ay sheegteen. Reerku waxay tiri geel xoolo geela uma joogaan. Ratiga weyn oo hala dilay hala qala la yirina waa adiga waa lagu dilahayaa. Ratiga dhaxo hala gada la yirina waa adiga hebelow. Ninka madax furashada sheegtaa taheede waa lagu xiran adiga lagu madax furashada lagu sameyn. Ratiga yaroo la yiri la iska daayo waa wiilkaana waa wiilkii yiri maxaa arrinka waa inuu ka heshiinay ha la iska daayo. Marka saas daraadeed hadalkan waxaan u soo xigtay in maaragtay dagaal hadduu dhacayo iyo haddii maaragtay nabadoonnimo la sameynayo horta dhalinyaradii ood ogtahay cunugga ugu yaraay ha la iska daayo waxa yiri nabadda raadinayay kuma jiro. Nin yar oo nabadda loogu baaqay oo dhahayo maaragtay nabadan hala galo nin dhahayo laga qayb gelinayo ma jiro horta meesha. Balse waxaad aragtaa in dadkii qabla ahaa hore u dagaalami jiray dalka dili jiray muxuu ahaa odayaal oo timuhu cadaadeen in meel walba inooga horeeyaan. Marka nin dhalinyaro noloshiisu waa midkii hadeer yiri ninkan arrinkan weynu ka heshiinay ha la iska daayo. Dhalinyarada waxaan leeyahay saasay nabadoono u yihiin oo saas bay maaragtay
wax walba hormuud ugu yihiin oo nabadana ayaga gacantooda ku jirta oo maxuu wax walba ayaga gacantooda ku jirta wax walba nabad dhalinyarada lagu soo celiyo